السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري ومركل إيه كنال كيني فهمتش ما أنت waxaynu qaadanaa habka aynu isaga diiwaan gelinahayn shirkadda Freedom ee laga qaato partnership-ka hadaba shirkaddan Freedom waxa ay ku sahlaysaa ama ay ku fududeynaysaa in adiga oo subscribe fara badan iyo views fara badan lahayn in ay lacag ay ku qorto oo aad ka shaqaysato YouTube-ka hadaba haddii marka aad iska diiwaan gelinayso marka hore waa in aad lahaataa channel marka aad channelka gashay aad soo furto sidoo kale ku soo baxo waxa aad sameynaysaa in aad halka profile-ka ku dhufato kadibna aad ku dhufato create studio aad ku dhufanaysaa kadib channel ayaad ku dhufanaysaa waa marka waxaynu soo tijaabinaynaa monetization-ka haddii YouTube-kaagu uu ka diiwaan gashan yahay shirkad halkan monetization-ka halkaas ayaa innaba ku noqonaysa marka aanu meel ka diiwaan gashanayna ma aha innaba halkaas ayaa loo baahan yahay in ay innaba noqoto si aynu lacag uga helo video-ga aynu soo gelinayno YouTube-ka haddaba marka ugu horeysa waxa iska YouTube-ka Google baa iska markaas wuxuu ku oranayaa waa inaad Google AdSense ku xirataa haddaba Google AdSense wuxuu kaaga baahay inaad kun subscribe iyo views badan hesho waxa ugu yar ay lacagta kugu qorsaa inuu yahay kun subscribe haddaba si inuga baarno waxaynu iska diiwaan gelinaynaa Freedom wax marka aad doonayso inaad iska diiwaan geliso tab ayaad furanaysaa marka hore waa in uu ku furnaadaa Gmail-kaaga iyo YouTube channel-kaaga kadib halka waxa aad ku qoraysaa freedom.tl kadib enter ayaad taabanaysaa enter marka aad taabato waxa ku soo baxaya halkii aad iska diiwaan gelin lahayd ee aad ku bixin lahayd information-kaaga kadib waxaad ku dhufanaysaa partner with us marka aad ku dhufato waxa ku soo baxaya halkan kadib wuxuu ku oranayaa Freedom would like to in aad waxyaabahan buuxiso aad aqbasho kadib accept ayaad oranaysaa marka aad tiraahdo wuxuu ku geenayaa page-kii aad ku qori lahayd information-ka ku saabsan channel-kaaga ku saabsan kadib magacan waa iska bedeli kartaa magacan hore Gmail-ka kugu samaysan laakiin waad u deyn kartaana halkan waa inaad ku qortaa username-ka aad u isticmaalayso مثلا مكان waxaa qorayaa hamsa sigaasoo faylkaas ku deysanay intaas aan qoriyo kadib Gmail-kaagana waxa weeye waa in aad halkan geliso mar labaad confirm waa inaad tira haddii marka aan isiraahdo copy si iga diidayaa aan copy iraahdo kadibna halkan paste ku dhaw iga diidaya markaas gacanta iskaga qoro kadib marka aad Gmail-kaaga geliso halkan dhalashadaada ayaad ku qoraysaa aad lacagta ku qaadanayso dhalashadaada markaas waa inaad iska saxdaa dhalashadaada kadibna halkan waxa aad oranaysaa cidii aad ka aragtay Freedom iyo cid aad ka maqashay ayaad halkan waxa aad sameynaysaa in aad halkan geliso cidii aad Freedom ka aragtay waxa baan iska oranaa George baad oranaysaa haddii aad YouTube-ka ka aragtay ama aad maqashay haddii kan qofka aad ka maqashay aad gelinaysaa kan George ayaa iska oranaysaa kadib labadan calaamadood waa in aad sax saartaa halkan waa inaad yes tiraahdaa halkan waa labada calaamadood sax saartaa sax baad leedahay halkan sax baan haddii aad 18 ka weynta looma ogola wixii 18 ka yar kadib continue ayaad oranaysaa
continue ba oranaysaa markaas wuxuu ku geenayaa toos ayuu u geliyaa markaas kadib waa aragtaan halkan uu keenay waa kan username-kaaga ku qoray marka waa kaas waxa aad sameynaysaa halkan wuxuu yiri email verification. You have successfully created your account. Please verify your email in clicking the verification link that sent to your account. kaas aan kugu soo dirnay account-ka kadib account-kaaga ayaad ku laabanaysaa account-kaaga markaad ku laabato account-kan waa account tijaabaan sameeyay kadib waa aragtaan halkaas waa ka freedom wata inooga soo muuqtay gmail-keena markaa ku noqonay freedom verification inoo soo dirtay waa kan kadib waan ku dhufanaa verification markaas waa kan kadibna okay aad siinaysaa waad si aqbalaysaa kadibna wuxuu kugu soo celinayaa dashboard-kii keenayaa markaas sidaas ayaad ku aqbashay waa kan markaas sidaas ayaad ku aqbashay markaas wixii inta ka dambeeya ayaa kula soo xiriiraya oo maxay dhahday wixii in ay ka aqbalaan iyo in ay ku diidaanba markaas marka ugu horeysa waa in aad iska ilaalisaa wixii koobiya ee YouTube-kaaga ku jira video iska dhili garay intaanad buuxbuuxin waa inaad ka saartay wixii koobiya iyo wixii koobigu video ha noqdo ama music ah waxyaabo fara badan ha noqdo waa in aanu video hore YouTube-ka yaalay waa in aanu YouTube-kaaga waa in aanad ku soo abaalgelin channel-kaaga markaas sidaas ayaa loo buuxbuuxiyaa cashirkeenu maanta intaas ku kooban yahay waa aniga maxamed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.